sida ku cad qorshaha fog ee afka qalaad lagu yidhaa istaraatiijig balaanka ee u dejisan jaamacadda Camuud ka faa'iideysiga kheyraadka dhulka iyo ujeesiga dhinaca tacabka beeruhu waa rukun muhiim ah oo qayb ka ah qorshaha iyo hiigsiga 5 sano ee soo socota ee jaamacadda Camuud si taas looga midho dhaliyo ilaa hadda waxa suurta gashay in la diyaariyo beer ay jaamacaddu leedahay oo cabirkeedu dhan yahay 7 hektar waxaana hawsha beertaas ka socota maanta kormeeray gudoomiyaha jaamacadda Camuud oo uu heliyo gudoomiyaha ku-xigeenka xidhiidhka dadweynaha iyo arrimaha ardayda ee isla jaamacadda Camuud waxaana ay ku kurgaliyo indhayn ku sameeyeen hawsha halka ay socoto iyagoo markaas kulana la qaatay shaqaalaha iyo howlwadeenada ka shaqeynaya beerta waxaana ugu horeyntii Maxamed Heebaan Cawaale agaasimaha xidhiidhka caalamiga ah iyo mashaariicda ee jaamacadda Camuud ahna xeel dheer dhinaca beeraha ah sidoo kalena kamid ah khubarada u igman kamid dhalinta beertan jaamacadda Camuud oo warbixin siinay gudoomiyaha jaamacadda Camuud oo yiri shaqada waxaan soo bilownay 1 bishan maantana waxay maraysaa dhulkii oo dhan baa la diyaariyay halkan waxaan banaynay dhul dhan 7 hektar oo dhul ah xagga sida wax ka muuqda shaqaalihii beertan loogu talagalay inay ka shaqeeyaan oo shaqadoodu si rasmi ah u bilaabay halkan waxaad arkaysaan dhulkii oo la diyaariyay dhamaantiiba dhulkan marka la diyaariyo waxay noo diyaaray isaguna waxa weey nursery-gii oo waxa weey la soo beeri doono la soo abaqaali doono nursery-ga marka la soo abaqaalo insha Allah taala khudrado badan oo kala duwan baa laga beeri doonaa waxa kale oo beertan qaban doonta hadii Ilaahay yiraahdo waxay noqonaysaa beer tijaabo ah oo ardayda kulliyadda beeruhu ay ka faa'iideysato dhammaan ardaydu waxay ku sameyn doonaan practicalladii kala duwanaa ee ay sameyn lahaayeen ay ardaydu ku sameyn doonaan kulliyadda ka faa'iideysan doonta iyo ardaydeeda waxa kale oo ka faa'iideysan doona dhammaan beeraleyda Soomaaliland waxay noqon doontaa xarun tababar oo lagu tababari doono beeraleyda Soomaaliland iyadoo loo beeri doono si cilmiyeysan oo la qabsanaysa cimiladan isbedelaysa ee hadda jirta jaamacaddu waxay ugu tala gashay in oo sanadkan ka go'an oo gudoomiyaha jaamacaddana ka go'an in horumarka jaamacadda la dhaqaajiyo marka tan qayb bay ka mid tahay horumarkii jaamacadda ee gudoomiyuhu ku taamiyay gudoomiyaha ku-xigeenka xidhiidhka dadweynaha iyo arrimaha ardayda ee jaamacadda Camuud Professor Maxamed Maxamuud Jaamac Diiriye oo taniya bilowgii hirgelinta qorshahan jaamacadda Camuud iyo marxaladihii uu soo maray indhaha ku hayay ayaa isaguna iftiimiyay in wax walba ay maanta diyaar yihiin lana doonayo in tacab dheeri ah la geliyo beertana lagana midho dhaliyo qorshaha fog ee laga leeyahay horta dhulka weyn ee arkaysiin een ku soo wareejinay gidaarka weyn ee 7 kiiloomitir ayay jaamacaddu haysataa waxaan doonaynaa marka laga bilaabo maanta oo bisha 1deedii laga bilaabo inaan dhulkani aan beerayno oo ardaydu ka faa'iideysto sida uu sheegay Heebaan oo sheegay ardaydu ka faa'iideysto jaamacadduna ka faa'iideysto dadweynuhuna ka faa'iideystaan biyihii ceelkii biyihii baan qodnay 7 hektar ayaa imika diyaara oo siligii ku soo wareejinay waa ka laga shaqeynaya naga dambeeyaan shaqaalihii waa ka wada cagaftii way dhamaatay qaybta kale waa qaybta loo imanayo kuwa yar waa meelihii waashmaanadu galayeen kolka waxa hadii Ilaahay yiraahdo waxay anfici doontaa jaamacadda oo xagga dhaqaalaha ka caawinaysa dadka caawin doonto isla markaana ardayda ka caawin doonto xagga waxbarashada waa beerta weyn hormuudka kulliyadda beeraha iyo deegaanka ee jaamacadda Camuud Maxamed Cabdi Cismaan oo qorshaha lagu hirgeliyay beerta oo faa'iido gaar ah u leeyahay kulliyadiisa ayaa isaguna tilmaamay inay doonayaan in beertani noqoto meel wax badan ka tarta cilmi kororsiga ardayda iyadoo markaas suurta gelin doonta in culuntii lagu bartay fasalada si dhab ah lagu qabto gudaha beertan waxaan rajaynaynaa beertan oo noqon doonta noocii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo Somaliland ama gobolka Awdalba inay noqoto beer tijaabeed iyo beer aqoonta la isku weydaarsado taas oo ay ka faa'iideystaan macallimiinta ardayda iyo guud ahaan jaamacadda Camuud iyo sidoo kale bulshooyinka ku dhaqan Somaliland waxaanu filaynaa inay beertani wax weyn ka bedesho xagga aqoonta xagga practicalka iyo xagga wax soo saarkaba sidoo kale sida gudoomiyaha jaamacaddu tilmaamay waxaan rajaynaynaa inay il dhaqaale oo ku soo kortay jaamacadda Camuud sidoo kalena ay noqoto waxa kale oo rajaynaynaa inay noqoto xarun lagu tababaro beeraleyda kala duwan ee dalka isla markaana looga faa'iideeyo aqoonta ay jaamacaddu hayso gudoomiyaha jaamacadda Camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil ayaa kormeerkaas kadib tilmaamay waxa uu salka ku hayo qorshaha fog ee jaamacadda Camuud ka leedahay beertan isagoo markaas si gaar ah carabka ugu dhuftay inay noqon doonto goob cilmi baadhis lagu sameeyo oo beeraleyda guud ahaan dalka oo dhan wax badan ka tarta sidaas sidoo kalena iba furta ila dhaqaale oo ka ballaaran kanay maanta jaamacaddu ku tiirsan tahay
sidii qorshuhu ahaa beertani waxay ka mid tahay qorshayaasha ay doonayso 5 sano ee soo socda inay fuliso jaamacaddu haddii Ilaahay idmo sida la sheegay waa 7 hektar inta aanu silika ku xidhnay 7 hektar sanadkan in la beeraan rabnaa haddii Ilaahay idmo wata bilaabantay bisha kowdeedii maanta bishii waa 6 weeye July insha Allah inta qalin jebinta ka horeysana waxaan rajaynaynaa in aan ku soo dhaweyn doono madaxda dalka halkaasoo waxa weeye khudraddu isqabsatay ayaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo beertan waxa loogu tala galay marka koowaad in ardaydu ka faa'iideysto oo ardayda galaya qaybta beeraha kulliyadda beeruhu inay practicalkii ku sameeyaan laba waxaan doonaynaa inay noqoto meel cilmi baaris oo mid ka mid ah beeraha ugu waaweyn ama ta ugu weyn ee waxa weeyaan lagu sameeyo cilmi baaris inay noqoto waanu iska kaashano hay'adaha caalamiga dawladda Somaliland ee jaamacadda iyo cid kasta oo danaynaysa ayay noqon doontaa haddii Ilaahay idmo waxaan ugu tala galay oo kale in dadkeena beeralayda ah saa ka warqabtaan waxa la yiraahdaa Somaliland badkeedu waa 137,600 kilomitir square 10% baa ku habboon baa la yiraahdaa in wax laga beerto waxa la beeraana kama badna 3% iyadoo sidaas tahay si loo dhiirigeliyo beeralaydeena ayaa waxaan ku tala galay haddii Ilaahay idmo in lagu tababaro laguna baro waxa weeyaan korobiska kala duwan ee cimiladan hadda isbedelaysa ku habboon kuwa adkaysiga u leh ama la jaan qaadi karaya ama sideedaba deegaankeena ku habboon ayaa loogu tala galay oo beeralaydaana looga faa'iideeyo ugu dambeyn beertan waxaan rajaynaynaa waa meelahan isleenahay ilaha dhaqaale ee jaamacadda ka soo gali doona oo aan ahayn fiid ardayda laga qaado inay ka mid noqoto oo dhinacna ay commercial farm ay noqoto dalka ka soo baxa la iibgeeyo suuqyada Somaliland iyo wadamada jaarkaaba loo iibgeeyo beertana ka mid ah cafeteria-da wanaagsan ee la dhisay baa ka mid ah isbitaalka Nalxayaad baa ka mid ah meelaha aan doonayno inaan upgrade gareyno oo aan waxa weeyaan quality-yadooda iyo waxooda kor u qaadno marka alxamdulillah way noo bilaabantay dhulku waa cas yahay wax walba waa diyaar waxaan rajaynaynaa 3 bilood kadib in iyadoo isbedeshay haddana aynu iman doonno haddii Ilaahay naftay noo daayo si kastaba ha ahaatee xoojinta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku jirto beertani waa qayb ka mid ah qorshayaasha fog ee jaamacadda Camuud ana xusid mudan in siyaasadaha gudoomiyaha jaamacadda Camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil ee ku aadan kamida dhalinta arrimahan ay yihiin kuwa cad oo aan ka beersanayn ujeedadii loogu tala galay isla markaana ay guud ahaan jaamacaddu u diyaarisay wax walba oo agab iyo adeeg ah oo hawlahaas lagu fulin karayay